السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي ذقاليقة أهوالين سلامي مقعيق ورحمة هالك أدنى داوانيسان وملاك جانل وكحوما هاي مالمهان وانسويني مشغولات جرا أوغيس waxaan ahay qof yani wax baranayo shaqeynayo noloshii la dagaalamayo fahanteen mararka qaar waxaa dhacaysa inaad jaanisba u heli weydo inaad youtube-ka wax soo geliso laakiin mar walba la idinkama maarmaayo waa muhiim in waqti la idinla qaato maanta 10 milyan wado waxaan rabaa inaan dacmi u sameyno gabdho Soomaaliyeed oo walaalaheen ah waan ogahay janalkayga dad badan ma ku xirno laakiin mar walba waxa ogaataa marka aad rabtid inaad wax bixisid muhiim ma ahan inaad wax badan heysatid saa wax u bixisid laakiin wax yar adoo heysatid wax yarka ah si qalbi ah hadaa u bixisid yani macno weyn ay sameynaysaa qofka u sameynaysidna macno u sameynaysaa yani waatan ay fahmi laayihiin in badan oo Soomaalida kamid ah walaalaheen halkan ayaan ku soo bandhigi doonaa janaaladooda iyo waxyaabo ay soo gudbiyaan insha Allah idinkana waxaan idinka rajeynayaa qof walba oo videogan daawado waxaan ka rajeynayaa in uu يعني dhiirigeliyo gabdhahaas oo taageero janaaladooda aa soo booqataan subscribe aa u saartaan gabdhahan ay igama codsanin inaan share u sameeyo ama aan janaaladooda halkan uga soo bandhigo laakiin aniga u kartay ma fahamteen mar walbana waa muhiim hadaa dumar nahnay inaan istaageerno ila soo dhaweeya insha Allah videoga ilaa dhamaadkana daawada sidoo kale janaalkayga hadii aad ku cusub tahay subscribe isaar soo dhawaaw mar walbana like videoga ka iloobin mararka qaar waxa arkay video aad soo gelisay waqti badan aad ku bixisay dad badan aad daawanay waxa laga yaabaa 5,000 2,000 3,000 inay ku daawadaan laakiin 15 qof like ay ku saarto taas macnaheedu maxaa waay xaasinimo ma dhihi karnaa ma xaasinimo ma ahan inaa hilmaamteen xataa waa macquul marka ha iloobina videoga inaa like saartaan waxay muhiim u tahay inaa like saartaan aniga waxay muhiim igu tahay videogayga dad badan uu gaaraya aad daawanayo sidoo kale abaayooyinka muhiim u tahay in ayagana dad badan ay arkaan janaaladooda waa mahadsantihiin daawasho wanaagsan ha hilmaamin videoga ilaa dhamaadka inaa fiirsatid janaalka ugu horeeyo waxa waaye walaasheen Nasra janaalkan ay leedahay Nasra Carfiyaaye cooking ugu qoran channel Nasra waxay soo gelisaa cunto karinta noocyadeeda kala duwan gabar Soomaaliyeed waaye wax badan ayaa ka faa'iidi doontaan insha Allah waxaan idinka rajeynayaa inaa Nasra aad dacmisaan oo dhiirigelin u sameysaan oo soo dhaweysaan janaalkeedana aad soo booqataan haduu Allah awood raali ka noqdo fiidiyoyaasha ay soo geliso waxaa kamid ah fiidiyogan ee uga hadleyso Nasra Carfiyaaye cooking channel meeshaan doona carrot amba karooto meesha waxaan ku haystaa qaandadan oo buuxda iyo haafkeeda oo sokor ah qiyaas ahaan qaandadana waxa waaye 3 qaando oo buuxda qaandada caadi cuntada lagu cuno markaas waxay ku noqonaysaa insha Allah 5 qaando oo qaandada oo lagu cuno cuntada oo sokor ah insha Allah cabitaankeena karootada oo maanta ka sameysnaa doona sida wada ognahay karootada waxay muxuu ahaa ii sheegeen caawisa caafimaadka indhaha iyo dhamaan jirkaba cabitaanada dalkana waa cabitaanada muxuu ahaa ii sheeg ugu macquulsan amba ugu tayada wanaagsan ee la isticmaalo Nasra janaalkeeda waad aragteen insha Allah linkigana hoos idin soo dhigaya qofka labaad waxa waaye Dr. Aisha Tooxo Aisha iyadana waa tiktooreysa baratay cilmiga caafimaadka general medicine waaye iyada waxay soo gelisaa caafimaadka caruurta iyo daryeelka caruurta waxyaabaha la xiriiro sidoo kale mararka qaar cuntooyin soo gelisaa mararka qaar challenge iyo waxyaabo yani funny ah way soo gelisaa sida hore aydan ku soo sheegay aniga waxa ugu badan oo ka hadli doona insha Allah ciyaalka waaye caruurta ciyaalka yar ama la nuujinayo ama waaye insha Allah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo faa'iidada ay u leedahay hurdada cunuga yarka ah qodobka ugu horeeya wuxuu yahay cunuga marka seexdo waxa shaqeynayo
hormoon saa u taqaanid ama hormoon numo wuxuu shaqeeyaa ilmaha markii ay hurdayaan cunuga waxay faa'iido u leedahay markii oo saacado badan jiifo in uu jirkiisa kabco oo cunug qurux badan oo sii weynaada qaadanay inta adeeg saas leeyahay muqaabalo waaye isku dayga wax walba isku dayo أنا يعني مسوين كرينا مدين سمعت هذا قانون عشان لي قلبي وناك سوين مرحبا انت هذه في عندها اوكي عايشة بين حسمتين إذن إيه رحمه اوكي طلبنا dabeecado badan oo fiican oo aan ka soo qaadan lahaa hadii wax la isticmaalo way jiraan laakiin sabrin way soo xadiday hal bis ee dad qof walba halka qaado doctorida la ku bilaabo halka xabo oo ka qaadan lahaa maxaa mutaqaaniin halka qaadan kartida way qof karti leh waa ma sha Allah oo meel walba inay ka soo baxdo jecel oo wax walba inay kaligeed qabsato jecel ma sha Allah ilaa ziyaadiyo kartida ka qaadan lahaa doctorida استاذ رحمة سوحرت إيدنا أي قادم له وحكي قادم لها قف حاسده معهن وحول بقى هيسو وحكوا سمينا سيد كأنه معنا عادي سمي سال هذا وكلام طبيعة داس عنك قادم لها لو فعلا عنك قادم طول ما سوي qofka saddexaad waxaa waaye rushda janaal rushda waxay soo gelisaa taariikhda islaamka qofka hadduu marba muslim u yahay waa muhiim inuu barto yani jabka iyo kuulaha iyo cashiradii taariikhda oo soo maray ummadda islaamka ah nala daawada janaalkeeda aan maqla magaciisa waxaa igu soo dhacay xilligii adkaaya uu noolaa isagoo ka taliyay qasri ka halis badan kaymaha dugaaga siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba way u liidatay dowladda islaamka markii uu xilka qabanayay intaas waxaa u dheeraa shirqoolada gudaha iyo dibaddaba looga maleegayay oo tirabeel ahaa xisbiyo kala duwan balse hal aragti ah ka midaysna ayuu wajahayay sida axsaabtii calmaaniyiinta ma'suuniyadda iyo qaar kale oo badan kuwaas oo dacwadoodu ahayd duminta khilaafada islaamka iyo galeelidda nidaam ka fog aragti islaami ah 20 Jamaadul Awwal sanadku markuu ahaa 857 hijriga ayay suurto gashay muslimiintu inay jiraan aswaartii magaalada madaafiicna ku dumiyaan darbiyadii qarniyo la soo ما شاء الله rushda janaalkeeda iyadana soo booqda waa u sheer kareynay community-ga u sheer kareynayna ama almuntada waxa loo yaqaano sida arkaysaan taleefankeyga ku duubaya taleefankeygana waxaa saaran carabi ma fahanteen awal marra waaye aad telefoonka video ku sameynayo marka videoga xoogaa sibu ila waxbaa igala yar qaldan laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa على الأقل يعني ina fahantaan 70% waxaan idin soo gudbinayo qofka afaraad waxa waaye almunshida najma cali xuseen waaye iyadana waxa waaye kabar fanaanad maarana munshida ayada anashida ee waxay ku qaadaa codkeeda quruxda badan sidoo kale yani anashida ku qaataa luqada carabiga iyo soomaaliga ما شاء الله رقت عيناي سوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام موطني يا أنا
شاء الله نجمو أباي معانت إلهي عدكاغا كو بركي وإش بلاتنكني إلهي هكا إلاليو qofka shanaad ee u dambeeyo najmo ku-xiga waxaa waaye abaayo saafi maxamed cali saafi tv. saafi iyadani waa kabadh soo gudbisa waxyaabaha la isku qurxiyo natural beauty waaye. sidoo kale waxay leedahay company aan idinka iloobin. kambanigeedu wuxuu sameeyaa waxyaabaha dabiiciga oo la isku qurxiyo. janaalkeeda waxyaabaha qurxinta bisma soo geliso xataa dhiirigelin fiidiyoyadeedu waxay cajiib ku yihiin inay aada u kaakaaban yihiin. waa hal daqiiqo iyo wax ka yar macno weynay ximbaarsan yihiin haddana maasha allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب شرفت لي كحيران channel كسافي تي في آد أيان إذن سلامية waxaan rabaa inaan idin la wadaago 10 qodob oo haddii noloshaada aad ka hesho ku tusinayso in noloshaada ay ku socoto dariiqa saxda ah ama aad u nooshahay si sax ah oo wanaagsan. inta aanan u gudagelin mawduuceena waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe dhahdaan channelka balaalkana aad riixdaan si aad u aragtaan waxyaabaha aan soo gelino isla markiiba. asxaabtayda qaaliga ah waa mahadsantihiin. fiidiyogayga intaasuu ku egyahay. waa rajeynayaa dhammaantiin inta daawato fiidiyogan inaa baxdaan oo abaayooyinkaas aa soo booqataan janaaladooda subscribe aa usoo saartaan. yacni isnooleeya dad iska dhiga markaa xagga tagtaana una sheega inaa ka imaateen malaag janaal. taasna waxay tahay yacni dhiirigelin iyo farxad. ma fahanteen anagoo dhanne waa wada taageernay. waa mahadsantihiin. intaan iyo inka badanaa u qalantiin ma fahamteen. ani inaan share out idiin sameeya ma ahayn. dad ani iga waaweyn oo iga caansan inay idiin sameeyaanay ahayd. laakiin biqadri alimkaan wixii aa awoodo waxba idinkama hagaran doono insha allah. gabar kasta oo taageerid u baahan ama wax un iiga baahan ama karab iiga baahan waxaan diyaar u ahay inaan la karab istaago. wax alaal wixii aa awoodo wixii aanan awoodin hadda maba awoodaba soo maahan. waa mahadsantihiin. janaalka subscribe like share comment ha ka iloobin. maasan tahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.